السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام بهذا هنتكلم عن تريدس كامباني مربوطون ده في كجوكتان. وأنا جوا أستاذ الحين أحمد سعدال أهنا ممبر كتير هنتكلم عن تريدس كامباني وحرمانتنا هذا اللي جوداجو العقد جيب بي USD before and after كده سيدان كو أجاني إن العقد باي توس أديسو إن شاء الله تعالى وأنا اللي جوداجو دونا. سأوجدان باتنك SMS العقد أنا يا هيد بولش بننت باتن الله SMS سأوجدان. So 1 2 3 markas taxad meesha ka duulayso waa la ogyahay waa la yaqaana waxaan loo yaqaanaa bullish pennant waana intusana insha Allah taala baatanka sida uu yaalo lacagtan waxaan ka qabanay ku dhawaad 121 baan ka qabanay sawjidaan ilaa halkaas so ilaa adiga almost 160 so هذا محا possible هذا محا possible meeshaan inkastoo zone ay tahay ama resistant meel resistant adag inay tahay oo mar badan soo daadata ay tahay waxa possible hadda inay soo dhacdo laakiin waxay u badan tahay inay trend line ka ay jibisay ee ku soo laabato as pullback ahaan din halkaasna ma taqaantaa buy kaga sii aado mar kale ilaa halkaas saas u baxdo ee possible ah hadda insha Allah taala waxaan tagayaa Telegram-kayga oo aan ku kaydsado lacagaha before and after iska صاحب يا سأل جدا نحن جوجا هذا تليجرام كنا جوجا سو واحد جدا هذا أنا متقن العقدان اللي قال الناس جري وحرب متقن وحما واكد جري لكن سه واحد نسنا إن شاء الله تعالى إن بارك الوقت تنجري أو اسمه يقدنين أو متقن واحد صح أنا كنت إن شاء الله تعالى سعيد تصير سأل جدا العقدان متقن واحد ده هالكاسة واحد كده أنا باي كأديسة هذا هالكان تمادو إلا ماشي ودو جارك تو ماشي صندهني أو 9 rule كده معناها أو باتن كاس gaari karto ama bas ay si gaari karto ilaa ma taqaana tira line kaas ay gaari karto maybe inay si jabsto laga yaabo ilaa korkaas kale ay si gaartaan waa possible so insha Allah taala waxaan dib ugu laabanaa trading view-geena so let's go insha Allah insha Allah taala waxaan joogaa trading view-geyga calaamadan waa calaamad wax lagu jiray ama cutting sa taqaanaan waxaan joogaa 1 hour time frame hadii aan taabto waa kaasa inoo ma gadna waxa anaga ku kadgareena ma jiraan so ومتقنا I hope مركز أنا قناع دونتان إن شاء الله تعالى waxa ujeedaan waa hada waa inay wax walba clear ay yihiin ujeedaan falay waa sida aan u sameeyay markii analyze gareeno waaye tabtiina ka laabatay so waxa kaliya waxay tahay aan aragno inaan intuuna waxay tahay in meesha anaga aan ku hayno waxaan ku hayno ay tahay wax for real ah aysan ahayn wax mataqaana oo caad ku jiro sidoo kale meeshaan oo kale markay jibisay pullback ku sameysay so maxaa la sameeyay candle retest candle and then maxaa la sameeyay bullish candle ujeedaan in mataqaana uu sameysmay then qofkii aqoon u leh baashaan halkaas uu ka gali karay so halkaas markuu ka galo wuxuu sameyn karaa qofka almost wuxuu sameyn karay ilaa trend line kaas inuu haysto waa 4 bip hadii trend line kale rejection candle waxaas ku aragto kaleeto ina isaga baxda kad wax rejection midna lama siinin markaas amal TB waa ka furnaysaa ilaa upside kaas geysanaysaa easily so maxaa dhacda si toos ah u dhacday marka lacagtan waxaan ku ogaanay waxay tahay trend line kan sida caadiga ah trend line kan anaga waxaan u isticmaalnaa waxay tahay inaan mataqaana aan saarno laba meel isku aadan inaan saarno sidoo kale zone waxa la jiro ina mataqaana ama support and resistance ay hoobsaas inoo fahmaysaan in ayadana mataqaana aad garanaysaan oo maxay ay tahay muhiim ay tahay mid kale asxaabtii weydiinayso istaraatiijiyada ma leedahay patterns istaraatiijiyadan pattern way leedahay waliba xitaa patterns fara badan bay leedahay insha Allah taala waa wada arki doonaa sida caadiga ah marka aasaato laba meel isku aadan saas ah waxaad arki kartaa markasta waxaa fiirinaysaa xataa laba meel oo mataqaana isku aadan oo suuqa laga alshaaraadinaysa taasay dan waxa ogaaday in lacagta meeshtan ay tahay meel oo mataqaana zone inay tahay ama meel mataqaana ay tahay support ah so waxa ogaaday meeshan dhexdeeda marka in lagu sameeyo mataqaana pattern oo ka sameysmay sida ay ujeedaan hada pattern kaas so easily pattern ka indhaha hore ka qabanayaan hada mataqaanta isdejisido tartiibka wax oo analyze gareystay so markaas aw saarto intan aka soo saarto trend line-ka easy waxa arkaysaa lacagta mataqaana in markaas ay sameeyso waxa fahmaysaaba in mar hadaa meesha naqshadan pattern kan bis ay sameysatay then you got the direction sax markaas waa hayshabo kadibna halkaas oo kale taha meel oo zone way noqon kartaa
oo lacagta waa taxta markii ay jibisay tan bullback ku sameysay kadib hadana candle weyn oo ka baxay meeshaas buy ka sii aaday sidoo kale hadana ay ku soo laabatay hadana ka sii dooshay so insha Allah taala waxaan rabnaa in soo xataa in mataqaana wax oo la taaban karo la arki karo in aan soo gudbino insha Allah taala sidoo kale waxaan idin wadaagi doonaa markaan lacagta euro USD aan isla fiiri doonaa insha Allah taala so let's go to the euro USD aan wada aadno lacagtan waxaan isku doonaa insha Allah taala ayadana before and after keeda waxa kale to marka idin wadaagi doonaa maxay ahayd lacagtan DXY markaan falaqeeynay insha Allah taala ayadana before and after keeda waan tusinanaa sidoo kale to bitcoin waa in la isgareey laakiin samaan u sameeynin before keeda mahay laakiin insha Allah taala ayadana waan tusinaa insha Allah taala soo dhaqaaqay lacagtan hadda waxa u jeedaa in mataqaan laba meel trend line isku aad markii la saaray dhowr meel in laga ceershay sidoo kale meeshaan zone ay tahay oo mataqaana adag ay tahay kula laabata lacagtan marar badan oo buy laga geeyay so marka waxa ogaaday lacagtan in totally buy ay aad doonto marka aan soo analyze garay DXY ay noqoto sell toos ah ayadan almost waxaan ka qabanay ku dhawaad as I think adiga let's say like 50 bacwan meelaas camal ka qabanay so not a big deal laakiin insha Allah taala waxa possible in marka meesha ku soo laabato kadib hadana candles buy SMHden buy toos ee aad lacagtan waxa laga rabaa xataa in ilaa halkaas ay aad insha Allah taala insha Allah waxa aan tusayaa lacagtan iyo mataqaana before keeda insha Allah taala so asal aragno insha Allah saaxiibayaal saa u jeedaan euro USD waatana before keedii halkaas markay mareysay waxaan dhaa lacagta halkaas bay imaanaysaa halkaasna buy ka aadaysaa I think total ina ku aragteen design-ki iyo tabta aan sheegna u dhaqaaqo u jeedaan without anaguna mataqaana hal kelmad oo been aan ku dareen so waxaan isleeyahay waxay tahay in meesha aan ku hayno waxa aqoon aan ku hayno ay tahay waatana marka aan ka baxnay lacagta markay targetkan noogu dhufatay so marka saaxiibayaal insha Allah taala waxyaabo badan baa isla fiiri doonaa so let's go aadno dib aan ugu laaban insha Allah training view-geena saaxiibayaal marka waxa aad doonaa DXY ayaan rabnaa marka inaan fiirino lacagta dollarka ah iyo habka u falaqeeyno iyo sida ay u baxday so let's check it out asla fiirino insha Allah taala DXY so habka u jeedaanba DXY waxa u jeedaan hadda inay mataqaantaas drop halkaas markay soo maraysan dhan lacagtan drop waa ina soo dhaana inta sanayna aydan before and after ka wada wadaagi doona insha Allah taala iyo sababaha aan ku ogaano ee iska cadahay meeshtan ay tahay meel mataqaana resistant ah ay soo jibisay bullback ku sameysay sida meeshan oo kale tan ay tahay meel trend line saarka daadan calaamadan baasha oo isticmaali kartaa so labada dhinac oo isticmaali kartaa so insha Allah lacagtan waxa laga filayaa marka inay hadana halkaas ay tagto ee soo laabato possible ah haday jibiso bullback ku sameysana waa buy haday mataqaana suuq mar walba aad xukuntid inuu iska daato maahan so wuxuu doona sameyn karaa marka insha Allah taala ayadana waa arkeena before and after insha Allah let us see insha Allah saa u jeedaan waxaan joogaa maxay ahayd DXY aan joogaa saa u jeedaan lacagtan waxa rabaa inaan si before keeda inaan si rabaa before keeda waa taasa sida ahayd meesha aan ka soo dhaan lacagtan sida ka soo aadaysa sida ku ogaano waxay tahay in meeshan ay tahay laba meel isku aadan marka laga saaro trend line-ka inay trend line soo jibisay pullback ku sameysay sida zone-kan kaleeto oo mataqaana ahayd meel oo mataqaana resistant ah pullback ku sameysay then lacagtaas drop soo dhahday so insha Allah taala waa taas ayadana taas waa iga heesaan oo mataqaana in aan ku ogaano waxaan anaga iska sameeyno maan without reason inaan u sameeyno sabab inay tahay so insha Allah taala waxyaabo badan baan la wadaagi doonaa sida looga faa'iideysto goldida iyo Nasdaq US30 insha Allah ayadana waa fiirinaa US30 Bitcoin sidoo kale waa fiirinaa so let's go insha Allah taala aan tagan trade view-geena saaxiibayaal hadii aan fiirino lacagta Bitcoin hadii aan fiirino insha Allah taala so let us check it out aan fiirino lacagta Bitcoin-ka US30 aan ku hormarno walba so US30 maxaa possible ah waxa possible ka US30 sameyn karto waa wax iska loojiga meeshan waa ka buy gareeno buy kaga faa'iideysanay sidoo kale meeshan buy kale kaga qaadano oo meeshan in bullback ku sameeysa u jeedaan lacagtan ayada badana sometimes trend lines ma lahan oo maxay ay toy
almost zone looga faa'iideystaa waa intii ka baxdo pullback ku sameyso kusoo laabato hadana ka dhaqaaqdo pullback hadana marka ay dhaqaaqayso inaad qaadato so marka hadda wax possible ka ah maxaa dhici kara duu istaatina sameyso in lacagtan design kan kala ku socota hadda possible ah saasna ku maata possible aydan halkaas u gudbaya insha Allah. So let's go to aan tagno bitcoin aan tagno bitcoin saakay waxaan soo dhigi bitcoin insha Allah taala sa ujeedaan lacagta bitcoin marka aan tago 4 hour time frame iyo hadda wax possible ka ay dhacayo waa arkaysaanba 4 hour marka aan tago lacagta bitcoin waxay sameynaysaa sa ujeedaan waxay sameynaysaa aragtaan bas u dhaqaaqday sa ujeedaan waxa waa sa u dhaqaaqday oo jeedaan oo si clear na u dhaqaaqday wali xita stajarka ay dhameystirtay hadda wax possible ka waxay tahay in hadda daba top formation ay sameysay waa oo reversal ah hadda waxa iska caday in lacagtan dhulka soo gali doonto ilaa halkaas imaanayso ama hadii kale halkaas inay timaado possible ah meesha ugu dhow so waa ka faa'iideysan kartaan insha Allah taala marka waan hoorka aan tago waa hadda waxa ujeedaa in candle weyn ay soo dhacday candle weyn oo soo dhaco jeedaan oo mataqaana sheegay in lacagta sar u sii aadi karto hadii la candle kale to buuxo ee sameystana iskaga har macna waa laga qalayaa laakiin hadii candle kan oo si toos u daatan waa la haystaa sabaanta laakiin hadii markale hadii candle buuxo ee halkaas ku xirmato waa laga haraa maaha bina stop loss accuracy aad maaha saaxiib yaan insha Allah taala halkaas ku soo akay doonaa cashirka maanta oo aan rabinaa in si lacagaha iyo sababaha ay u dhaqaaqeynaa in tusino waxaan noo balnaa insha Allah taala next video. I hope inaad mataqaana video ku raaxaysateen insha Allah taala like iyo commentiga ka iloobin insha Allah subscribe na saar channelka. Stay safe saaxiib yaan.